haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaadhnay marxaladda aynu haatan marayno. bishii Maarso 1996 Kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduudeeda aagga dhaqaalaha ee badda. bishii Juun 2005 Kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduudeeda badda, iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo. waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aaggeeda dhaqaalaha ee badda. bishii Oktoobar 2008 ergeygii xilligaasi qaramada midoobay Axmed Walad Cabdalla ayaa gacan ku siiyey Soomaaliya diyaarinta xogta ay Soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambeynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009. bishii Abriil 2009 Soomaaliya iyo Kenya waxay kala saxeexdeen is-afgarad ama MOU. bishii Juun 2009 Kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah. bishii Agost 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeexdeen Kenya iyo Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda Soomaaliya ee dhinaca badda. nimanada Soomaaliyeed waxa ku qoran hadda wax akhrisay ummadda ku akhriska soo taqaano wax tabakana wax akhrisay waxa ku qoran in dowladda walbaba ay mataqaanaa barnaamijkeeda kontract service-ka ay raadsato ay waxay mataqaanaa iyadu ay ka doonato isku iyo mataqaanaa United Nations kadibna maba la hadlinba. waxa uu soo baxay markii ayada ay warqad gooye ee qoratay markaas baraaruga yimid oo oranayo mooyinkaas macquul ma aha wax soconayna ma aha. annagana waxaan qorannay markaas warqadda aad aragtay oo aniga aan bir ku saaray lafteeda oo Prime Minister Cumar Cabdirashiid uu ku qoray magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa Secretary General mataqaanaa United Nations Ban Ki-moon aan leenahay annagu reservationka ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda Kenya ku raadsanayso arrimaha delimitationska mataqaanaa ee badda. markaa dowladda jirtay iyo dowladda kale dowladda Xasan Sheekh Maxamed Durki madaxweynaha waaba ka sii wanaajiyey wuxuu yiri absolutely annagu ban laga hadli karo arrimaha xeebaha Soomaaliyeed xariijin la sameeyo iyo mataqaanaa xuduudka Soomaaliya madalayadeena lawgu caliyada konferenska shirka oo sababta badda ee dowladda leedahay laga hadlay ayada markii ay u gudbtay mataqaanaa xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinaca aad markii aadan waxa markii uu qoray dibadda meesha la leeyahay annagu waxaan rabnaa in aan wax annaga sida ay inkoos caadi loo maray oo si jirti la maray inaan marno. dacwaddan waxaa xareysay dowladda Soomaaliya 28 bishii Agost 2014 kadib markii wadahadaladii labada dhinac u dhaxeeyay ay guuldareysteen. Kenya waxay iyadu aaminsan tahay inaan wadahadalada lagu guuldareysan, waxayna si joogto ah ugu ololeynaysaa in kiiska laga saaro maxkamadda ICJ, labada dowladoodna ay ka wada hadlaan. doodda Soomaaliya ee xuduudeeda waxaa rasmi ahaan loogu gudbiyey maxkamadda ICJ 13 bishii Juulaay 2015. Kenya ayaa markaasi kadib diidmo ka keentay in maxkamaddu ay dacwaddan qaadi karto, waxayna diidmadeeda rasmi ahaan u gudbisay 7 bishii Oktoobar 2015. bishii Febraayo 2017 maxkamaddu waxay laashay diidmadii Kenya ee ahayd inaysan maxkamaddu awood u lahayn qaadista dacwaddan. xilligaasi kadibna maxkamaddu waxay muddaysay dhageysiga oo ay ka dhigtay inta u dhaxaysa 9 ilaa 13 Sebteembar 2019. haddaba waa maxay mowqifka labada dowladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda? dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 100,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah oo ku yaala badweynta Hindiya, lana aaminsan yahay inay ku jiraan kheyraad badan oo shidaal ah. Soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxaysa ay ku saleysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka iyadoo la raacayo mabda'a equidistance principle. mabda'aasi oo ay aqoonsan tahay hay-adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba. wadamo badanna ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya. safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa ka warramaya mowqifka dowladda Soomaaliya. Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan annaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda sida iyada u rabto u goosato, taasoo ah maaragtay
waxay goosatay wax la yiraahdo parallel line to the line of latitude marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay Soomaaliya luminaysaa 100,000 square kilometer ma runtii oo meel area oo maaragtay kheyraad fara badan ka buuxo ayay luminaysaa marka anaga waxaan leenahay hal raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada wadan oo deris ah kaasoo ah equidistance principle. Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduudeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya. Waatan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii June ee sanadkan. The most important thing is to stay within the confines of the rule of law and international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as one, and there is a rationale for that. waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeyndaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaysaha sabab ayayna taasi leedahay sidaas daraadeed waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid ah midowga Afrika uu mabda'an u hoggaansamo waa tallaabada ugu horeysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda. Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan. It is important to note that on 3 occasions, in 1979, in 2005, in 2009, Kenya muhiima in hoosta laga xariiqo in 3 jeer oo kala ah 1979kii 2005kii iyo 2009kii Kenya inay ku wargelisay Soomaaliya xuduudeeda badda sida uu yahay oo ah loolka 139.43.2 koonfur waxaan ku sheegnay 3 ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha. Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraaladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamo ay u soo dirto qaxootiga oo ay martigeliso iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Soomaaliya waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ. Professor Afyare Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Qatar waxaana uu daraasad ku sameeyay amniga badaha. waxaan wax ka weydiiyey sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal mastuur. Kenya mar walba cabsi waxay qabtay sida xuduudku uu u sameysmaayo marka international law-ga la isticmaalo in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay marka taana aniga waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay gaar ahaan CLCS si cad ugu leeyihiin annaga kiiska yagayaan caadi loo fiirina si gaar ah loo eego marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ku dhimayaan iyo dhaqanka guud markaad fiiriso waxa ii muuqata aniga in xoogaa Kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn daban wuxuu waa maxkamado go'aanku meeshu rabo u dhici karaa laakiin taasa laga fahmi karaa yani dhaqanka meesha yaala waxaan rabay Harun markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dawladdii militarigu jirtay wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agda dhawaayeen xagga capacity-ga iyo xagga xataa maaragtay inkastoo Kenyaanku mararka qaar ay hadda waxaan EEZ-ka la isticmaalaba ayaga keenay la yiraahdo haddana fikirka ayaga keenay haddana saasay tahay waa la iska agda dhawaa tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara annagana dad baan u dirsan jirnaa ayaguna dad baan u dirsan jireen waan aad baan iskaga agna dhaweyn laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddadaas dheer marka waxay keentay inaan khibradii intii jirtayna aan weyno in cusubna ayna noo soo bixin waxaan rabaa kaliya inaan hadda kuugu daro TLCS markii ay Kenyaanku u gudbinayeen case-kooda waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan sidaa daraadeed khubaradaas darteed case-kooda in la dedejiyo warqad saasay ugu qorayaan yani annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha waana la garan karaayo guud ahaan stateki iyo state buildingkiya meel hoose oo bilow ah jooga. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidayso Soomaaliya. Markaan arrintaa eegeen tay si wanaagsan u dashay waxa ii muuqatay
in dooda dadka dowladda Soomaalida markii Xasan Sheekhan ahaato ama tan Maxamed Farmaajo ha noqotee inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka. dowladda Kenya waxa weeyaan waxay og tahay haday masalan marka iyadu eegtayba xataa khariidada u dhaxaysa xalanka u dhaxeeya Tanzania iyo Uganda wuxuu u dadban yahay siday ka Soomaalida waxay doonaysaa in loo dadba xadka Kenya iyo Soomaaliya badda u dhaxeeya. ta Mozambique waa sidaas leeg, ta South Africa waa sidaas leeg, ta Morocco iyo Mauritania waa sidaas leeg, Europe hadaa saacadna waa sidaas leeg. marka dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan hadii la kalo dowladaha Soomaalida ay yihiin maqaar saar intooda badan inay laga yaabo inay ka gashan karto oo wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soo walaalayna. dadka Soomaalida markay fahmeen waa ku dowladii maxay Umar Cabdirashiid iyo Kooriye watii aad loogu kacay. marka waxay dowladda Soomaalida ugu adkaysatay waxa weeye haday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay diilo weyn iyo kan u keeni doonto wadankan u keeni doonto. dowladda Kenya waxay fahamsantay haday gorgortan gasho oo la ilaahay isku tanaasulno inay wax waxeegi ka badan heli karto. taas ayaa keentay marka inay doonto in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyara ay qabsato. ninka waxa la sheegaya ilaa 25 ilaa 30 milyan dollar inay ku bixisay inay Mareykan iyo Europe waxay dhex gasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonaynaa in laga soo saaro waayo iyada waxay isleedahay ku khasaari maysi waatii la oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi maysi. Kenya marka maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysi walaal. bishii Febraayo ee sanadkii hore xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay. waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada London, kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda. Soomaaliya waa ay beenisay taas waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka la isku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso. Kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho, waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wada tashina uu la soo sameeyo dowladda Soomaaliya. haddaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee sidee ayaa dacwadani ay u saameyn doontaa xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya? xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada wadan nasiib darro. horta waa nasiib darro ayaan darro weeyaan waxaan haysato waayo Soomaaliya Kenya aad u istaagtay dhibaato fara badan ee Soomaaliya soo martay hooyo iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wadanka Kenya. marka horta inay xiriirka la kharibo oo lagu tunto horta waa nasiib darro. anaka haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah waxaan rajaynaynaa oo ku faraxsanaa waqti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan inuu naga dhaxayo waqti kastaba iyo mar kastaba. laakiin intan dambe hadda xiriirka xumaanayo aniga haddaan nahay gabadha Soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay waxaan rajaynayaa oo ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeena fiicnaa noo soo noqdo. waxaan ka rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo. laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aad u dadaashay wax badan samaysay ummadda Soomaaliyeed wax badan usoo qabatay mise ha noqdaan markay soo qaxeen mise ha noqdaan inta hadda ku leh meel kastoo Kenya la degan yahay bulshada ku leh maaragtaa raasamaal fara badan gasteen waa ummadda Soomaaliyeed weeyaan. marka inaan hadda qol kicino mise dhibaato kicino mise xiriirkeena qadibno aad iyo aad bay nasiib darro u noqonaysaa. Dr. Cali Siciid Fiqi safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda, waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda. Kenya way cadeysatay inaysan u hoggaansameyn go'aanka wax ka soo baxay meesha, marka taa hadda muran kama jiro. marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen, marka taa way caddahay inaysan maaragtay u hoggaansameyn. siduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka uu u dambeeyay kadib
taa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya hadda daandaansi weligeed ma sameynin diyaarna wuu hayray daandaansi sameyso laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii la iska qaato fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelino channelkan haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid